waa kulan soo dhaweyn iyo bandhiga buugga Danjire ee uu qoray Danjire Maxamed Cali Nuur America oo lagu qabtay magaalada Melbourne ee dalkan Australia iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ku nool gobolkan. sharaf bay noo tahay haddaanu nahay jaaliyadda reer Victoria inaynu caawa halkan isugu nimaano munaasabadan runtii qiimaha leh oo aan ugu talagalnay inaanu ku soo dhaweyno walaalkeen Maxamed Cali Nuur oo loo yaqaano America oo ah safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay wadanka Kenya. wax badan ma oran doono insha Allah kaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo barnaamijkan qayb ka qaadatay. Sheekh Ciise Muuse oo ah madaxa imaamyada gobolkan Victoria ayaa ku amaanay Danjire Maxamed inuu halkan soo gaaro si uu jaaliyadda ugu soo bandhigo buuggiisa Danjire. سفير على أمريكا دور دقيقة لفرديي بوغا أو قري وحوي شيء إنه كساب سنيهاي شيكا إسقا كل عضي لكن دلنياراتهين أخرية كتب تكسب بحا في صوماليا سفيركو خير الله سيو وكرو ما هتسنيها إنه ماشي وجودن بيس عالم كنوجي يمي dadka siyaasiyiinta ah ma yimaadaan dhulkan sababtoo ah kharash iyo lacag badan baa kaga baxda laakiin qofkii bini aadnimo iyo wanaag iyo khayr ka shaqeynaya kuma adka inuu halkan yimaado oo safar dheer u soo galo kuma adka waa waxa uu halkan u yimi weeye buugaas oo Maxamed Cali Nuur Danjire Soomaaliyeed oo qoray oo asaga khaas ahaan ku saabsan daafurkan muddo meel badan buu ka soo dhacay qaarado badan oo ka soo dhacay laakiin qaaradan Australia ee deganahay aniga iyo rag badan oo Jaabiri iyo kaleeta ah ilaa iyo 34 sano maanta noo dhamaatay waxa weeyaan waa markii ugu horeysay oo Danjiraha noogu yimaado halkan tan kaleeto muhiimka ah waxa weeyaan ku dayasho ilmaha naga carruurtanada halkan ku wada dhashay inaysan maalin walba arkin professor Adana Sweden ka imaanaya oo ku daafuraya book meel ku daafuraya mataqaana jaamacad ama anaga aan macallimiin ka nahay ama aan joogno inay arkaan nin Soomaali ah oo anagoo kala ah oo hooyadii Soomaali tahay aabihii Soomaali yahay book qoray oo siyaasi ah isla markaas diplomatic ah asagana bookgiisa la daafuraya inay arkaan wax muhiim ah waay buugaanu wax badan ayuuna bari doonaa saan rajeynayo sababtu waxa weeye Maxamed wax badan oo shaqo ah ayuu ummadda u soo qabtay qofku markii uu intuu shaqo soo qabto taariikhdiisa iyo waxa uu qabtay iyo sida uu wax u rabo uu ka sheekeeyo dad badan baa ka faa'iideysanaya khaasatan dhalinyaradeenna waan ku soo dhaweynaynaa magacaaga waa haynaa waxaad qabataan waa la ogyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana shakhsiga waxtarka ah oo wadaniga ah oo Soomaaliga ah waa dadka waa uga soocan yahay qof kasta waxa uu ka hadlayay buuga laakiin aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo wax qabadkiisii aniga waxaan ka mid ahaa dadkii soo maray Kenya xilliyadii ma aragtay waxaan ku sugnaa halkaas xilligii uu dhacayay weerarkii Westgate 2013 dad fara badan oo waxa jiray ma aragtay Soomaali ah oo la xirxiray aniga dadkaas aan ka mid ahaa marka waxa dhacday in aan isku dayn inaan xiriir la sameeyno safiirka oo ay noo suurta gashay inaan xiriirkiisa aan helno halkaas ayaan u sheegnay inaan ku xiranahay oo inoogu imaaday waxa la yaab leh in isla markiiba dad fara badan oo waxa jiray la iska soo qabtay oo si gardaraa lagu heestay isla markiiba halkiiba uu ka saaray qoraaga buuggan Danjire Maxamed Cali America ayaa ka sheekeeyay buuggan qoristiisa iyo qoraalada qaybaha kala duwan ee ay isugu jiraan buuggaas waa buug ugu horeeyay aan qoro waxay u qaadatay inaan qoro ilaa 2 sano 3 sano ku dhawaad markaan bilaabayna marar badan ayaa isku dayay inaan joojiyo
wax kale ma ahayna waa baqayay inaan ku ceeboobo in mataqaana wax fiican aan qori waayo ayaan ka baqayay alxamdulillah waa dhameeyey buugga waxaan u hibeeyey waalidkii allah u naxariisto hooyaday xaawo mudde gacal iyo aabbahay cali nuur xuseen cali amiirko marka ayagaan buuggaas u hibeeyey buugga waxaan kaga hadlayaa taariikhdeeda meeshaan ku dhashay waxbarashadeeda ilaa dugsi sare aan kaga soo baxay muqdisho kadib aan jaamacad u aaday waddanka maraykanka 1980kii buugga waxaa kaloo ku qoran oo aan chapter kaga sheekeeyey dhacdo ku dhacday reerkeennii oo gabadha aan dhalay ladhaha yaasmiin lagu dilay muqdisho 92 weer la soo weeray gurigeenna kadibna aan dibadda soo aadnay annaga maraykan iyo kanada soo aadnay sheekadaasna waxaa kale ku jirto 2014kii nin ka mid ahaa dadkii gabadhayda guriga soo weeraray oo dilay oo ii yimid ii sheegay inuu ahaa dadkaas cafis weydiistay wixii dhex maray aan kaga hadlay buug waxaa kale ku qoran markii aan Nairobi dagaalkii mataqaanaa shirkii ka dhacay Nairobi ee dibishinta ahaa Embakasi iyo Nairobi oo aan soo laabtay la doortay madaxweynaha Allah xafiis Cabdullaahi Yuusuf iyo Rajaali Cali Maxamed Geedi oo aan xafiis ka shaqeynayay 2007 ayaa lii magacaabay safiirka Soomaaliya ee u jooga Kenya intaa kadib dadku ayaa guda galay inay buuggan iibsadaan oo ay akhristaan iyadoo qoraaga buugganna uu u saxiixay dadkii iibsaday qaarkoodna waxay iiga warrameen aragtidooda buuggan iyo waxa ay ka fahmeen bismillaah magacaygu waa Saara waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay daahfurka buugga Danjire insha Allah waxaan rajeynayaa inaan complete gareeyo wada akhriyo magacaygu waxa way Abshir Xuseen Abshir buuggan Danjire la yiraahdo waxa qoray Maxamed Cali Nuur America buuggan waxa way buug macno badan xambaarsan laakiin mainly wuxuu ka hadlayaa taariikhda nololeedka iyo waxyaalihii soo qabsaday siyaasiga Maxamed Cali Nuur waa buug wax badan ka hadlaya waxaan kula talin lahaa dhalinyarada iyo dhammaan dadka wax akhriska iyo aqoonta jecel inay buuggan akhriyaan maadaama waxa laga faa'iideeyo waxyaalo badan oo aad loogu baahan yahay waxyaalo qaybo badan baan ka akhriyay buugga inta dambana insha Allah waan jecelahay inaan dhameystiro waa buug aad xiiso u leh lacagta buugaagtan ka soo baxda waxa uu ii sheegay inuu ku taageerayo hay'adda Yasmin Foundation oo uu aasaasay Danjiraha taas oo wax barta caruur badan oo Soomaaliyeed oo aan awoodin qarashka waxbarashada taniyo intii buuggan uu soo baxay waxa uu Danjire Maxamed Cali America uu geeyay meelo badan oo caalamka ka mid ah iyadoo qaaradda Australiana magaalada Melbourne lagu soo bandhigay waxana uu sii gaarsiin doonaa gobolada kale ee dalkan buuggan Danjire waxa uu ka kooban yahay 206 bog waxana la aruuriyay xogtiisa muddo 2 sano ah iyadoo la daabacay sanadii 2021kii sida uu sheegay Danjire Maxamed Cali Nuur America buuggan waxa uu xambaarsan yahay xogag badan oo ku saabsan noloshiisa iyo waxqabadkii tan iyo intii Danjiraha uu ka ahaa safaaradda Soomaalida ee ku taala dalka Kenya Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal TV magaalada Melbourne dalka Australia